Assalaamu calaykum waraxmatullaahi kusoo dhawaa muuqaal cusub. Stop haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato channelkan, calaamada gaduudan ee subscribe ka taabo, gambaleelka furo, fiidiyowgana like saar, commentina ka soo bixi. Muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa maxaa ka cusub ciyaaraha maalmahan, sida suuqa kala iibsiga, waxyaabaha aad ku maqli doontaan barnaamijka ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo lacag ugu faanaya dadka dunida, iyo maxay tahay sababta uu u tagay magaalada Dubai oo hadalhayn badan reebtay. Xiisadii ka dhalatay mushaarkii ciyaaryahan Arturo Vidal iyo kooxda Barcelona oo meel xun mareysa. Rasmi West Ham United oo u magacaawday tababare macallinkii hore ee laga ceyriyay kooxda kubadda cagta Manchester United, iyo tababare Jurgen Klopp oo magacaabay labadii ciyaaryahan ee isbeddelka ku sameeyay kulankii xalay ee Wolves iyo labadii ciyaaryahan ee garoonka ugu fiicnaa, iyo waxyaabo kale oo badan oo ku maqli doonto barnaamijka maanta ciyaaraha. Geesta kale, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa kusoo bandhigay astaan muujinaysa inuu lacag haysto magaalada Dubai. Halkiisa gacan kaliya ayaa waxaa ku xirnay laba shay oo qiimahoodu ka badan yahay 630,000 oo euro. Cristiano Ronaldo ayaa kamid ah ciyaartooyda dunida ugu lacagta badan leh, haddana jecel inuu ku raaxaysto lacagtiisa oo qiimo badan ku baxsho, dhaqaale badan ku baxsho waxyaabo qurux badan oo dadka ka aaminsan yihiin musrifnimo. Dhinaca kale, xiisada ka taagan kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xidigeeda khadka dhexe ee Arturo Vidal ayaa ah xiisad mushaar. Arturo Vidal oo xidig reer Chile ah ayaa maxkamad soo taagay kooxda kubadda cagta Barcelona, maxkamadaas oo ku taal magaalada Barcelona, xilli Arturo Vidal uu ku dooday inuu ku leeyahay kooxda kubadda cagta Barcelona 2.4 milyan oo lacag ah. Laakiin Barcelona ayaa taasi beenisay oo sheegtay in Arturo Vidal uu ku lahayn wax lacag ah, maxaa yeelay Arturo Vidal ma ciyaarin kulamo badan, ayuu ku doodayaa madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Jose Bartomeu. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa tababare u magacaawday tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United iyo Everton, tababare David Moyes oo ah 55 jir. David Moyes ayaa heshiis dhan 18 bilood qalinka ugu duugay inuu hogaamiyo kooxda kubadda cagta West Ham United. David Moyes ayaa kulanka ugu horeeya ee West Ham hogaamin doona sanadka cusub bilowgiisa. Waxa uu la ballansan yahay kooxda kubadda cagta Bournemouth oo ka ciyaarta Premier League. David Moyes ayaa soo fadhiisan doona kursiga kaydka si uu u bilaabo shaqadiisa ugu horeysay ee tababarnimo kooxda kubadda cagta West Ham United. Dhinaca kale, tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ammaan kala dul dhacay xidigihiisa qaar ka mid ah kadib markii ay xalay gool dirqi ah ka gaareen kooxda kubadda cagta Wolves, gool 1-0 ah. Kadib markii ciyaarta uu dhaliyay gool, ciyaaryahan Sadio Mane uu diiday, garsoorka ayaa waxaa oggolaaday. VAR ayaa u heliyay kooxda kubadda cagta Liverpool, halka kooxda kubadda cagta Wolves uu gool dhalisay, waxaana garsoorku uu oggolaaday, kadibna waxaa diiday VAR. Tababare Jurgen Klopp ayaa sheegay kooxdiisa inay is adkeyso sababtoo ah waxa ay ciyaareen 19kii hore ee horyaalka, balse waxaa u dhiman 19 kulan oo adag. Tababare Jurgen Klopp ayaa sheegay inay dagaalo badan soo wajahayaan sababtoo ah waxaa kusoo socdo kulamo adag oo Champions League iyo tartamada Yurub. Taasi ayaa muujinaysa inuu dadaalo. Geesta kale, tababare Jurgen Klopp ayaa ammaan kala dul dhacay xidigihiisa qaar ka mid ah, sida xidiga kubadda cagta garabka midig ka ciyaara ee Alexander Arnold iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Sadio Mane iyo Mohamed Salah. Halkan waxaa kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii aan uga hadlaynay maxaa ka cusub ciyaaraha maanta.